Oyo hawaayin wahalala dhowr hawaayin Soomaali weynta hawaayin Soomaali weynta hawaayin Soomaali weynta. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada barnaamijka Fac Cusub. Toddobaadkan aad iyo aad ayuu xiiso badan yahay, waxaana ku daawan doontaan xubnaheena joogtada ah sida xubintii wararka, xubintii maalinteeda, xubintii akhlaaq wanaag, xubintii ciyaaraha iyo xubinteena u dambeysay barnaamijkii su'aalaha. kusoo dhawaada xubintii wararka. Sanad walba 29 Oktoobar waxaa loo aqoonsan yahay maalin caalami ah ee internetka adduunka, waxaana markii ugu horeysay loo dabaaldegay 29 Oktoobar 2005. kooda bisha Junaayo sanadkii 1983 ayaa ah markii ugu horeysay ee internetka adduunka soo shacbaxay, xilligaas oo la ogaaday in internetka adduunka uu muhiim u yahay. Ma og tahay internetka in markii ugu horeysay la aasaasay sanadkii 1969 isla markaana uu noqday wax muhiim u ah bini'aadamka. Hadda internetku waa saaxiibka qof walba, laakiin ma ahan internetka kaliya baraha bulshada. Internetka waxaa laga helaa waxbarasho diini iyo mid maadi ah, sidoo kale waxaad ka baran kartaa luqadaha adduunka midii aad rabto. Intaas waxaa dheer oo internetka laga helaa fursado shaqo, tababar iyo in aad uga faa'iideysato waqtigaaga waxyaabaha muhiim ah ee laga heli karo. Bishii Junaayo 2021 waxaa la diiwaan geliyay 4.66 bilyan oo qof ah oo adduunka isticmaalo internetka. Wadanka ugu badan ee isticmaalo internetka waa Hindiya, halkaas oo si maalin ah u isticmaalaan in ka badan 825.3 milyan oo qof ah. Haddaba hooyo iyo aabbo, ma og tahay internetka ay caruurta kaga jiraan moobilka uu sidoo kale u leeyahay faa'iidooyin iyo khasaaro? Waxaa muhiim ah hooyo in aad la socoto ilmahaaga waxa ay isticmaalayaan internetka, mar walba ka tirtir oo ha u ogolaanin wax walba oo xun oo saameyn ku yeelan karo noloshaada. marista wadooyinka khatarta ah iyo caruurta aad u yaryar ayaa dhibaato kale ah markii loo eego badqabtooda. Inta badan waalidiinta Soomaaliyeed kuma baraarugsana wadooyinka khatartooda, in ay caruurta la kulmi karaan khataro halis ah marka ay aadayaan meel ka baxsan guriga. Askari jiifka baabuurta ayaa qayb weyn ka qaata xooliga ay ku socdaan baabuurta, si loo yareeyo khataraha ku dhici kara caruurta ama qof walba oo maraya wadada. Taas oo looga baahan yahay waalidiinta Soomaaliyeed in ay sameeyaan in ay caruurta ka warqabaan ama ay raacaan markay caruurta aadayaan meel ka baxsan guriga, si ay u noqdaan caruurta kuwa hela badqab buuxa. kusoo dhawaada xubintii maalinteeda.
وأنا سلامي مدعي دوا وانتو مانتو ومالنتي يعني ستصل مانتو ماشا صحلو يا وحبضنا ستصل صباح تا سريرتا أنا جيفتو تن بومب لواي هبينتي يا استادي إلى تن أبايا جيفتو أبايا توا مقنطة هاي subaxdii martaa kasoo taco hoodaa qabtaa salaadiya dugtaa hoodaa qabtaa istuulna waa dhigtaa dusina waa dhigtaa istuulta magaciisu waa Jabir bin Xayaan. سيار سلاجها سواحين تصدق هابت الدنيا عارقة صلاة جدا بعدها هابت الدنيا عارقة بعد ستوري هذا وحيرا توجودا بعد فيديو الطلدوها الطلدوها بعد الطلدوها على صارت بعد الطلدوها مرتطوط بعد الطلدوها ماشي يلا مشجرة بعد ماشي تطوط على صارت بعد الطلدوها عشان يشوفون دوسي ما أدي دوسي ده ما أدي دوسي وقتها استوى وقتها وحنا أنا تقول عشان تريديها هاد وأصل خبصة من تقول بس عليه حسيات مريضة قناعات مريضة وحنا برضه شو سامين صوتنا وحنا استولتي نفسي برضه. kusoo dhawaada xubintii akhlaaq wanaag. السلام عليكم kusoo dhawaada barnaamijka Faa Cusub. maanta waa maalin jimce waxaa waqti la qaadan doonaa caruurta halka u soo dalxiis tagta ana waxaa weydiin doonaa xubinta su'aalaha ee barnaamijka Faa Cusub. Anna waxaan weydiin doonaa xubinta akhlaaq wanaag ee barnaamijka Faa Cusub. السلام عليكم. وعليكم السلام. magaca موليد. ma ku faraxsantahay inaad kasoo muuqato barnaamijka Faa Cusub? ها. waxaan ku weydiinaynaa su'aal sida tan u dhacayso sidee lagu noqdaa qof wanaagsan? inaa dadka iga waaweyn ixtiraamo, inaa shanta salaadood iyo tukado, iskuulka markaa joogo inaa qof caynin. waxaa qof oo fiican lagu noqdaa inaa shanta salaadood la tukado, in ilaahay laga cabsado, in waalidiintaada waxay ku dirsadaan in loo qabto, inaa waxbarasho waa dhigtaa iskuul iyo dugsi waana ku faraxsanahay inaad dhigto. waxbarashada ma jeceshaa marka? haa waa jeclahay. dugsi ma dhigataa? waa dhigtaa. iskuulna ma dhigatido?
maadadii u jeceshahay marka maadooyinka Soomaali. ما شاء الله السلام عليكم Calaykum salaam. kusoo dhawo barnaamijka Facas Waa ku dhawaad. magaca Xamza Xamshir. sidee lagu noqdaa qof wanaagsan oo ina waalidka akhlaaq u yeelatid, salaadna tukatid, waalidka ina xishoosid, dadka xishoosid, iskuulka aadid, meel walba aadid. ما شاء الله dugsi ma dhigataa Waa dhigtaa. iskuul leh Waa dhigtaa. salaad ma dukataa Waa dhigtaa. meeqay salaada dukataa marka Shanta. ما شاء الله maadaday u jeceshahay marka Tarbiyad. Akhlaaq waxaa lagu yeeshaa salaadna tukatid, waalidka baar u noqotid, wax walba loo dirsado qabatid. Wax walba soo gadaan, wixii la dirsado soo qabtaa, wax walba soo qabtaa. Horta kale maxaa leedahay? Ha? Horta kale waalidiinta wax waalidiintiin wax barta wax doonta waxay ku dhahaan amarkiin qaata wax ka maqla. السلام عليكم kusoo dhawo barnaamijka Facas magaca Inta inta sidee loo noqdaa qof akhlaaq wanaagsan hooyadaada waa inaad gabar fiican u noqotid, hawsha ay ku jirtana u qabatid, dugsigana aadid, waxbarashadaada aasamaysid. ما شاء الله dugsi ma dhigataa hindu Haa, iskuul leh may dugsiga intee maraysaa quraanka iqra. ما شاء الله salaanta salaada ma tukataa Waa tukataa. shanta salaadood tukataa maano ما شاء الله Hooyadaada waa inaad gabar fiican u noqotid, hawshana u qabatid, hadday ku tiri dugsiga aadid, waxbarashadaadana aasamaysid. Dadka weeweynka inaad dhaaftid, Ilaahay ka cabsatid, salaadaadana inaad tukatid. Hooyadeeda waxay ii dirta ayaa qabtaa, dugsigana waa aadaa. Hooyooyinka waa inaa waxay ku dhahaan qabatid. kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii barnaamijkeena u dambeysay ee su'aalaha ku soo dhawo barnaamijka faacso waa ku dhawahay magacaaga saddexan Sabriin Abdicasiis Maxamed Sabriin waxaa ii sheegtaa wax ilaa ay madaxa laga garaaco aan aan soconaynin Musbaar ku soo dhawo barnaamijka faacso waa ku dhawahay magacaa Faadum Ali Abdullahi Faadum waxaa ii sheegtaa wax ku daba soconaayo aan ka hareenin meel kasta lugta dhigtid oo ku daba soconaayo oo na dhaqaaqaynin dhulka waa mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka faacso barnaamijka si dhawahay ay magacaaga saddexan Cabdinajiib Abdiraxmaan Maxamed Cabdinajiib waxaa ii sheegtaa wax 4 farood iyo hal suul leh oo nooleen galofista oyo hawaayin wahalala dhowr hawaha yin Soomaali weynta hawaha yin Soomaali weynta hawaha yin Soomaali